equation wuxuu leeyahay waa balanced way dheelitiran tahay waa inay isleeg tahay marka inta leftiga ka xigta ama bidixda ka xigta iyo inta midigta ka xigta xagga mass numberka marka la eego waa inay isleeg tahay sidaas si lamida waa inay isleeg tahay inta atomic numberka bidix ka xigta arrowga iyo inta midigta marka la isku geeyo waa inay iyaduna isleeg tahay and the mass number on the left arrow is equal to the sum of the mass number on the right of the arrow marka xagga waxaan ku haysanaa 224 plus 220 is equal to 220 plus 4 marka dhinac walba waxay leegtahay marka 224 iyo leeg 224 waxaan kaloo kale similarly for the atomic number sidaas lamida hoosta waxaan ku haysanay radium waxay ahayd 88 equal 86 plus 2 is equal to 88 radon ayaa haddana waxay noqotay it is self radioactive ay sii noqotay waa nagii niri waxa jira wax la yiraahdo radioactive series decay series curiyo markuu sii daayo radiation it means wuxuu noqonayaa another atom ka kale uu noqday laftigiisa laga yaabaa inuu isagna weli aan stable yahay oo uu isagna u diyaarsan inuu radiation uu sii daayo tusaale ahaan imika radium baa radiation sii daysay alpha waxay noqotay radon radon baa iyada laftigeeda haddana weli unstable sii ah dibadna markay haddaba alpha sii dayso markay alpha sii dayso what is the new element ama what the new atom samaysmaya intaas soo sheegnay weydiiyo waxa weey marka dibadna waxaynu sameeyni you can work out what xisaabin kartaa baa lagu yiri what the new element waxa uu noqonayo new element by balancing the equation adigoo equation-ka balance gareynaya waxaynu sameynaynaa symbol xagga waxaynu ku haysanaa 220 waxay la mid tahay 4 plus halka calaamad su'aalka marka x noogu qaad dii marka x plus 4 is equal to 224 4 ka soo wareeji waxay noqonaysaa marka 220 oo laga jaray 4 isagoo marka waxa noo soo baxay marka maxay 116 curiyaha 116aad markaad ka eegto periodic table kan wuxuu soo baxayaa curiyaha wax loo yaqaano polonium deedna marka macnaheedu waxa weeye the element with atomic number 84 atomic number kiisu yahay is polonium mass number kiisu uu yahay 116 ama 100 ama 200 say 200 xaga kariyaha 200 iyo 16 sababta xaga waxaynu ku haysanaa 220 plus x dana marka xoreyna marka 216 marka 4 kaynu soo wareejinayna deena waynu ka jaraynaa mise waxaan oranaa marka waxaan oranaa 216 saas si lamida maskina isagana wuxuu noo noqonayaa marka 216 marka curiyaha mass numberkiisu yahay 216 atomic numberkiisu yahay 84 markaad periodic table ka eegto waxa ku soo baxaya marka curiyaha loo yaqaano polonium way soo marka waxa leenahay marka 220 oo hoostuna ay tahay ama mass numberku atomic numberku uu yahay 86 markay radiation sii deyso radiation kaasoo alpha ah waxa soo baxay curiyaha loo yaqaano 216 plus 84 oo loo yaqaano marka maxay polonium if you are given the two elements you can work out sida horena oo soo qaadanay waxa soo qaadanay haddii labada curiyo lagu siiyo curiyaha radiation ka sii daay iyo ka uu noqday waxaad garan kartaa ama aad soo saari kartaa which type of radiation that emits radiation ka la sii daayo nooca uu yahayna waad garan kartaa adigoo marka by balancing
adigoo markaa balance gareynaya ama deletiraya the equation x select marka imikahan waa tiimikahan markii hore soo marno waxaanu halkan xisaabinay waxaanu haysanay radium oo noqotay radon waxaan markaas garanay waxa soo baxay inuu yahay maxay alpha particle because of waxaanu xisaabinaynay oonu balance garanay equationkii marka mid walba waa taqaanaa astaamihiisii waxa uu leeyahay what about the beta decay ka labaad aynu gudubno beta decay markaan leenahay beta naturekeeda waxa la oran jiray waa electron from the nucleus electron from the nucleus uu ku iman jiray waxaanu naqaanay nucleuska waxa ku jira caadiyan oo sida caadiga ku jira waa protronada iyo neutronada dabeedna hal neutron ayaa wuxuu sameyn jiray split ama inuu kala jabo oo uu kala jabo proto electron pair wax la yiraahdo electron iyo proton inuu kala jabo dabeetana protonku halka nucleuska ku nagaado electronkuna uu ka soo baxo nucleuska isagoo high speed ku socda way dabeedna marka waxaan oran jirnay astaamaha ay leedahay waxa kamid ah marka uu alpha decay uu dhaco in ay mass numberka ayna waxba ka bedelin oo unchanged ka dhigto sidoo kale atomic numberkan ay ku biiriso maxay hal ay ku biiriso say ku imanayso anaga sheegno mass numberku wuxuu ka yimaadaa protronada iyo neutronada hal neutron baa kala jabay sax laakiin hal proton baa hadana soo biiray way electronkiisa wuxuu markaa sameeyaa inuu ka soo baxo nucleuski beta decay happiness beta decay waxay dhacdaa when a radioactive element emit beta particle markay sii deyso a neutron waaba xaqan ku sheegay a neutron will split into one proton and one electron wuxuu kala jabay hal neutron ba wuxuu kala jabi doonaa ama kala bixiyaa hal proton iyo hal neutron way the proton will remain in the nucleus protonku wuxuu ku sii hadhi doonaa oo ku sii nagaan doonaa in the nucleus and the electron is ejected at high speed electronkina waxa laga soo saari doonaa ama ka soo bixi doonaa nucleuski at high speed the nucleus bu'da hadaba atomka which emit one beta particle sii deysahay will have waxay yeelan doontaa ama ay noqon doontaa increase of number of protons by one inay ku kordhiso number of protonski by one ama atomic numberki by one unchanged number of nucleons inayna waxba ka bedelin ama wax saameyn ayna ku yeelin nucleuski ama nucleonski waxa loo yaqaan marka waa mass numberka halkan imika oo nucleonta waxa mass wuxuu ka yimaadaa waa protronada iyo neutronada oo ku wada jira nucleuska marka saas nucleon loo leeyahay waa mass numberka marka for example carbon 14 waa carbon isotope horiyaha carbon 14 becomes nitrogen buu noqday by emitting isagoo sii deynaya a beta particle waxa loo yaqaan radiation ka beta particle isagoo ayuu sii deynaya dabeedna wuxuu noqonayaa nitrogen horiyaha carbon 14 say waa kan carbon waxa naqaanay waa mass numberkeedu wuxuu ahaan jiray 12 markii caadiga tahay iyo atomic numberkeedu 6 marka isotope ayaa jira isotope kan soo qaadanay waa atoms kale same number of protons but different mass number marka waxa jira carbon 13 carbon 14 kuwaas oo markaa maxay oo wada isotope hadaba waxaan halkan ku haysanaa curyaha carbon 14 oo masskiisu yahay 14 atomic numberkiisu yahay 6 ayaa wuxuu sii daayay radiation arrowgan wuxuu tusinaya marka inuu radiation meesha ka baxay way dabeedna marka markuu anaga nili markuu atomku radiation sii daayo atom kale ayuu noqonaya waxaana ka noo soo baxay marka nitrogen masskeedu waa 14 waa naqaanaa atomic numberkeeduna waa 7 way tira ahaan way isku xigaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin xagga atomic numberka heer tamareedku isku xigaan way mass numberkoodii laakiin maanta waa isku mid sababtoo ah waxa meesha ka baxay ayaa wuxuu yahay betana masskeedu waa 0 atomic numberkeeduna si kale hadii loo eego atomic numberka hoostu qaadanaysaa waxay waa -1 intan aynu balance gareyna marka xagga waxaynu ku haysanaa 6 equal
7 minus 1 6 marka atomic number markaynu xisaabin xagga qaybta casaanka hoose 6 wuxuu la mid noqonayaa 7 minus 1 oo la mid ah 6 is equal to 6 xagga dusha marka timaadana 14 is equal to 14 plus 0 oo macnaheedu ay tahay 14 ayaa la mid ah 14 waa xaggan hadda inoogu soo qoray way the nuclear equation is balanced nuclear equation kaas radiation ka sii daayay waa balanced value way daily tiran tahay because sababta lagu sheegay waxa marka the mass number on the left on the arrow is equal to the sum of the mass number on the right mass number ka leftigu wuxuu la mid yahay isku geynta qaybta xagga bidixda waxaan ku haysanaa nitrogen 14 plus alpha oo masskeedu yahay 0 marka 14 oo carbon equal 14 oo nitrogen plus 0 oo beta inta markaynu isu geeyno marka 14 is equal to 14 similarly for the atomic number ka 6 is equal to 7 minus 1 waxaanu marka odhanaynaa the element the equation is balanced curiyaan waxaa la nasiiyay bitmeans ayaa waxaa la nasiiyay hard emitted beta particle example ke what will be formed if bitmeans is emitted maxaa sameysmaya la yiraahdo hadaba hadii curiyaha bitmeans kaas hard emitted beta particle uu sii daayo bitmeans waxa la sheegay ama bi mass numberkeedu waxa lagu sheegay 212 atomic numberkeeduna waxa lagu sheegay 83 wuxuu sii daayay beta dabadna xagga equation kan iska leekiisina waxaan odhanaynaa 12 ama 212 equal 0 plus 212 marka dusha waxay noqonaysaa marka curyaha inoo soo baxaya ee loo yaqaano polonium curyaha atomic numberkiisu wuxuu noqonayaa mass numberkiisu wuxuu noqonayaa 212 hoostii kaalay waxaynu nidhi beta particle marka uu dhaco mass numberka waxay ku kordhisaa by 1 curyaha ay noqonayso marka markuu beta uu sii daayay mass numberkii maxaa ku biiriya 4 buu noqonaya hadhow markaad xisaabinayso equation-keeda inuu balance noqdo laba dhinac isla ekaadaan left side iyo right side ay isla ekaadaan aad rabto 83 equal baad oranaysaa -1 plus 84 marka -1 plus 84 xaggan waxa nooga soo hari doona marka 83 the answer waxay noqonaysaa marka it will have a mass number wuxuu yeelanayaa 212 atomic number 84 the element ka soo baxay marka is polonium waa tii marka hore aynu soo qaadanay example gamma decay gaanu gudbo gamma decay waa marka uu atomku sii daayo gamma waxaynu ku naqaanay iyadoo horta waxa ay ahayd rays nature-keedu waxa ahaa radioactive electromagnetic radiation buu ahaa ka imanaya from the nucleus of the atom dabadna high speed ku socda ama high frequency electromagnetic wave waxa la yiraahdo iyadu mass na ma laha charge na ma laha labada midna ma laha mass-keeduna waa 0 charge-keeduna waa 0 saadaladeed waxa la yiraahdaa gamma decay happen wuxuu dhacaa when a radioactive nucleus release its energy excess energy halkan ku yar dul istaagno gamma decay aanu soo noqono gamma decay waxa la yiraahdaa wuxuu dhacaa marka uu atomku sii daayo ama beta ama uu alpha sii daayo waxa la yiraahdaa wuxuu galaa xaalad la yiraahdo excited state xaalad kacsanaan uu energy fara badan uu yeelanayo atomkii oo protonadii neutronadii ay high energy ay yeelanayaan dabadna marka waa markuu ama alpha sii daayo ama uu beta sii daayo si uu hadaba atomkani stable u noqdo waa inuu energy-dan excess-ka uu iska sii daayo saaro hadaba habka uu energy-dan ama tamatan ay ku baxayso ayaa waxa la oranayaa waa asa gamma decay inay gamma decay u dhaco ayuu energy-daasi ay ku baxaysaa sadartii waxa meesha inoo qoran decay happiness gamma decay happiness when a radioactive nucleus release ay sii deyso it is excess energy means waa energy zaidka ku jirta nucleuska atomka iyadoo u bixinaysa in the form of high frequency electromagnetic wave u bixinaysa soo darteed marka kol hadii iyadu ayna mass lahayn masskina saameyn ku yeelan mayso
charge hadday lahayna atomic numberkiina saameyn ku yeelan mayso. That means waxaan markaa odhanaynaa there are no changes, ma jiro wax isbedela oo ku dhacaya in the number of protons and neutrons and nucleons. Number of protonski oo ah atomic numberkii iyo nucleonski oo ah mass numberkii wax isbedela oo ku dhacaya ma jiro. But the total energy, laakiin total energy-gii uu lahaa nucleuska atomkaas of the radioactive nucleus will decrease ayaa yaraanaysa oo isdhimaysa. Waay waxaan isla garanay markaa waxa loo yaqaano gamma decay marka uu dhaco inuunan wax saameyna oo toos ku yeelanayn atomic numberka iyo mass numberka, laakiin uu saameyn ku yeelanayo waxa loo yaqaano energy-dii uu lahaa atomkaasi uu lahaa. Below are examples of both beta and alpha and beta emitters which give off kuwaasoo haddana sii daaya markaa gamma rays. Halkan waxaan haysanaa baa laga yidhi curiyaal sii daaya alpha iyo beta haddana ka sii daba daaya maxay waxa loo yaqaano gamma decay ama gamma rays ka sii daba daaya. kan aynu nimaano uranium baynu haysanaa 228 atomic numberkeeduna uu yahay 92 waxay sii daysay halkan inuu ka eegaynaa si aynu u garanno masski waxa ka go'ay 228 buu ahaa 234 buu noqday waxa ka go'ay by 4 atomic numberkii waxa weeye 92 xagana dan wuxuu noqday 90. It means marka shayga kale aatee mass numberkiisuna uu yahay 4 atomic numberkiisuna yahay 2 waa alpha. Marka helium nucleus iyo alpha na waa same as. Marka weli haddana wuxuu sii daayay gamma radiation oo gamma radiation rays wuxuu ahaa mass numberkooduna waa 0 atomic numberkooduna maxay waa 0. sababta inuu marka waxa weeye curyahan markuu radiation sii daayay oo ka noqday thorium uu noqday thorium weli waxay haysataa maxay unstable way excited state bay ku jirtaa. si marka stable u noqoto waa in uu sii daayo maxay gamma waa inuu ka sii dabadaayo waa inuu gamma uu ka sii dabadaayo. markaan hadaba u nimaadno aynu balance garana equation kan waxaan haysanaa 238 xaggana waxaynu ku haysanaa 240 plus 4 waa 280 plus 0 waa 280 kiilo. marka maadaama kan 0 tahay wax ma ihtimaal male labadan baynu isku geeninaa waxa la kaysinaa uranium 238 xagga hoose u kaale atomic numberkooda waxaan haysanaa 92 xaggana 90 plus 2 92 0 marka iyada waxba iska daa. curyahan kale aynu haysanaa thorium waxaan haysanaa 90 oo mass numberkeedii iyo atomic numberkeeda 38. waxaanu garanaa marka uu alpha sii daayo in halkaa 38 ka uu hal ku biiri doono laakiin mass uu noqon doono same. marka waxay noqotay 39 waana markiiba garan karto waxa uu sii daayay inuu yahay maxay alpha particle beta particle waxa uu sii daayay maadaama masskina isbedelin atomic numberkiina ay xabadi ku biirtay waxa uu sii daayay waa inaad taqaana inuu yahay what should I say beta particle oo tan beta halka noo taala hoosta markaad isu geyso 39 minus 1 is equal to 38. marka 38 ayaa la dhacay 38. The nuclear equation are balanced sababtoo ah the gamma ray halkan calaamadda gamma soo dhigay gamma rays do not affect ma saameynaysa marka the mass and atomic numbers labada midna ma saameynaysa. halka remember bari when a radioactive nucleus emit alpha and beta particle ay sii deyso the proton and the neutron in the new nucleus may not be their most stable form. ma noqon kartaa la yidhi markuu atomku sii daayo beta iyo gamma markuu sii daayo qaabkii hore ay lahaayeen ma yeelanayso saameyn ay ku yeelanaysaa macnaheedu way nucleuski. The proton and neutrons can rearrange themselves. atomkii markuu labadaas sii daayo uu sii daayo proton iyo neutron wuxuu qaabkiisii hore ma noqonayo. deeda markaas uu hadaba qaabkiisii hore u noqdo sababta waxa ku jirta la leeyahay energy tamar fara badan ayaa ku jirta. si hadaba marka qaabkiisii hore u noqdo the proton and the neutrons can rearrange themselves iyagaana foog dib macnii qaabkooga iskood bay isku habeynayaan to become more stable
si ay u noqdaan kuwo stable oo degan marka waxaan nidhi xaalad excited state ay galayaan. And in this process haddaba habkani marka uu dhacayo energy is emitted, energy ayaa la sii deynayaa iyadoo u baxaysa marka energydaasi in the form of gamma rays. waaye halkan waxaynu isla soo qaadan haddaba aan ku yar noqono radioactive decay inuu 3 yahay, alpha decay, beta decay iyo waxa loo yaqaano marka maxay gamma decay. way alpha decay marka uu dhaco waxaanu nidhi waxay samaysaa maaska saameynta ku yeelanta waa inay 4 ka goyso maaskii atomic numberkan ay 2 ka jirto. sidoo kale markay timaado beta decay uu dhaco waa inuu mass numberkii uu sidiisa hadu waxba ayna ka bedelin atomic numberkan ay xabad ku biiriso. gamma decay markaan u imaanana gamma do not affect the nucleus the nucleons and the proton numbers. iyadoo mass numberkana ma saameyso sidoo kale proton numberka ama atomic numberkana ma saameyso.